إنا لله وإنا إليه راجعون متكمل ciidamada booliska Soomaaliland ee ku sugan gobolka Awdal gaar ahaan kamida waardiyaasha jaamacadda Amuud magaalada Boorama ayaa aawa goor 6 maqribnimo waxay rasaasi kaga dhacday mid kamida ardayda ku jira kulliyadda engineering oo lagu magacaabo Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ku jira sanadkii labaad ee kulliyadaasi sida ay xaqiijiyeen maamulka jaamacadda Amuud hadaba waxa la wadaagay ehelada qoyska iyo qaraabada uu ka baxay marxuumkaasi taasi tiiraanyale maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama madax dhaqameed awdal taliska qaybta booliska gobolka Awdal Allah u naxariistay ardaygan isagu geeriyooday iyo waliba askariga rasaastu kaga dhacday ayaa waxa la sheegay inay ka soo jeedaan bariga gobolka Sanaag ugu horeyn daba waxa hadalka iska daba qaatay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintiin barmaayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame iyo gudoomiyaha jaamacadda Amuud magaalada Boorama Professor Saleebaan Axmed Guuleed waxaana halkaas ka sheegeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qadar Allah ma shaa facal إلهي بس دونه يلا كور مغرب كيا وحنين عسكرية حبضي كذا عضي إبراهيم عبد الشكور إبراهيم وحن لنا قوس كيا قرابدية الكيبة سمري من الله ينجود السياء وينجود البحي أرض مستقبل كيس تسوي في أبو هذا وسنة كلامات إنجنير كتير سلاو نور شيء بروفيسور كو إن وحن كحنا هاي شيل كارد حياة بانو كحنا هاي قبلهان يجمع الهام باو نقطع سنينا إن كاس جيريودي يا سكرجة حبضو كقدر عذيبا لابد واحد كودي مدين برج السنة وحن لنا هاي لما تود بقى لا يستمر هاي نقصيو شركة صدور العي بليس كقعنتو كهيا سكر بيلو سبوها بعدين بوكشرا السكنة كل جوان كيس بليس كأنه كسوقنا إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan diraynaa taasi tiiraaye leh oo ku dhacday Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ahaa arday ku jiray jaamacadda Amuud sanadkii labaad qaybta engineering-ka rasaas kaga qaraxday arday askari kamid ahaa waardiyayaashii jaamacadda waan ka xunnahay waxaan u tacsiyeynaynaa qoyskiisii qaraabadiisii ehelkiisii degmada Boorama oo ay 5 sano ugu dambeeyay deganay jaamacadda Amuud iyo qaraabadiisa iyo gobolka iyo Soomaaliland baan ka tacsiyeenaynaa mar walba shilalku way dhacayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun askarigii gacanta geystayna wuu xiran yahay baadhistiina way socotaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan taasi u diraynaa qoyskii uu ka geeriyooday Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ahaa arday sanadka labaad ee kulliyadda engineering-ka jaamacadda Amuud ardaygaas oo ay rasaas ka timid nin booliis ah ay gaadhay arrintiina booliiska ayaa gacanta ku haya oo baaritaankeedii ninkii shilka geystayna uu xiran yahay booliiska ahaa ardaygana saas ku geeriyooday waxaan aad iyo aad uga xunnahay gobol ahaan jaamacad ahaan iyo Soomaaliland ahaanba ardayga geeriyooday oo ka ku dhuftay isagu ay ka wada yimaadeen bariga Sanaag aad iyo aad waan ka xunnahay ardayga yagii waha inanka yagii waha kalnade qaranku u shaqeeyo booliis qaranka u shaqeeyo waha labadaba waa bahdin xaqana waa isku bahun xaqana waa isku bahun bay haayeen sida daraadeed ayaanu eheladii iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo qaraabadoodii ayaan tacsi u direena anagoo ka xun tiiraanyeysan inankaas oo sanadka labaad ah mustaqbal fiican runtii laha haddana ilaahay inama weydiiyo ciduu qaadayo isagun baa u taliyo fiisihi baa u yimiday fiisihi ilaahay oo horjoogsi lahayn ayaa u yimiday marka mar labaad iyo mar saddexaad annaga oo jaamacaddii mathalayna madaxdii kale la socoto madaxdii qarankan aan halkan la joogay kuwa gobolka iyo odayaashiiba ayaan tacsi weyn oo kashkiya laabta ka soo go'day ayaan u diraynaa geesooda qaar kamid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa ehelada marxuumku ka baxay taasi tiiraanyada u diray waxaanay sheegeen in gacanta lagu hayo askarigii dilkaasi geystay ilaa haddana ay socoto baaris Allah u naxariistana Allah siiyo eheladii uu ka baxay iyo waalidiintii iyo walaalihii iyo qaraabadiina samiriyay baan Allah ka siiyo jaamacaddii iyo ardaydii kulliyadda ahaana samiriyay baan laga siiyo dhammaan dadka iyaga reer Awdal ee maanta halkan maamulkiisii iyo madaxdiisii dhaqankuba wada joogaan ku tiiraanyeysan ee ay naxdinta gaarka ku tahay samiriyay baan Allah naga siiyo إنا لله وإنا إليه راجعون
halkan waxaa isugu nimidnay marxuumkaa dhintay ibraahim cabdishakuur ibraahim ilaahay naxariista siiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo walaalihiina ilaahay samir iyo iimaan jamiila ha siiyo allah u naxariisto waxba sidii haddii la dhahdo muxuu ku dhacay lama yidhaahdee maxay ku qabowdaa iyo maxay ku dawowdaa unbaa la yidhaahdaa marxuumkaa ninkii gacantu kaga dhacday wuu xidhan yahay waa buliiskaana gacanta ku haya iyo xukuumadda iyadaa haddii la dhaahdo haysa waa siday ahaan jirtay dhammaan tarakadii iyo ehelkii uu ka tegey iyo jaamacadihii iyo dhammaan ummadda waxaan leenahay sabir iyo Allah ka siiyo gaar ahaan waalidiintiisii iyo walaalihii iyo sabir iyo Allah ka siiyo waxa isku kaaya keenay intayadaasina waad garanaysaano waxa weeye waa damqasho haddii gobolkan ay mid gobolkan ay ku dhici lahayd ama mid goboladan kale reer Soomaaliland ku dhici lahayd intayadaas iskuma dhimaadeen intayadaas maanta iskuma dhimaadeen laakiin waxa isku kaaya keenay cid kasta ya meel shafog ka yimid baa isku kaaya keentay taasa maanta habeennimada xilliga isku kaaya keentay waxaan leenahay sabir iyo Allah ka siiyo gabigeennaba dhammaan tarakadii uu ka tagay sabir iyo Allah ka siiyo Hussein Hataye Gafna Universal TV Borama